kulanti wanaagsan oo waxaan meel ka soo adduunyada ka joogtaan daawadayaal kuna soo dhawaada waraysigan kooban oo aanu la yeelan doono haddii Allah awood la yiraahdo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier loo yaqaan marka la soo gaabiyo mudane Maxamuud Cabdi Jaamac raali hadalka dadku dhagaa oo asagoo caawa stuudiyaha nala jooga aad iyo aad ugu mahad celinayno si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo ku jirtana xiriir nolol soo sameeyay anaguna waxaan ku faraxsanahay inuu halka nala joogo aan insha Allah taala dhowr su'aalood oo diiran aanu weydiino oo aan diirada ku saarno sababtu halkan u yimid iyo shir weyn oo magaalada London ka dhacay shalay iyo daraad laba maalmood oo isku xiga oo soo qaban qaabiyeen dawladda Ingiriiska iyo dawladda Canada oo wajigiisa labaadna sanadka soo socda xilligan oo kale uu ka dhici doono dalka Canada ayaa lagu soo casumay shirkaas ayaa waxa looga hadlayay xorriyadda saxaafadda iyo sidii wariyaasha loo difaaci lahaa caqabooyinka la kulmaan dadka warbaahinta ka shaqeeya haddaba waxaanu ognahay dhibaato fara badan ee dalka gudihiisa ka jirto dad fara badan oo Soomaaliyeed oo warbaahinta ka shaqeeya ay caqabooyinka la kulmaan maamulada kala duwan ee jira insha Allah taala fooda ayaanu dari doonaa waxaanu insha Allah taala qaybaha dambe ku eegi doonaa wariye Cabdimaalik Mas'uul doona asagoo laftigiisa hadda dhawaan la xukumay oo xiran garyaqaankii asaga u dooday muuqaal yar baanu ka haynaa insha Allah taala oo barnaamijkan aan ugu talagalnay inaan kula wadaagno waan soo dhaweynaa meel kastoo joogtaan marka horeysa Maxamuud aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa inaad stuudiyaha nala joogto mar labaad soo dhawo aad iyo aad baad mahadsantiin Universal TV iyo team ka shaqeynaya waxaad iiga warantaa marka hore ujeedada u timid halkan iyo shirka wuxuu darnaa bismillaahir rahmaanir rahiim ujeedadaan u imid sida aad sheegtay waxa igu soo casuumay shirkii caalamiga ah ee ka socday magaalada London dawladda Ingiriiska gaar ahaan xafiiskeeda Hargeysa FCO-ga wasaaradda arrimaha dibadda baa igu soo casuumay taas baan u imid ujeedada shirkana sida aad sheegtay runtii wuxuu ahaa shir caalami ah oo dunida oo dhami ay iskugu timid waxaana hogaaminayay dawladda Ingiriiska iyo dawladda Canada iyagoo ka duulaya baaqi xogayaha qaramada midoobay uu ka soo jeediyay tacadiyada saxaafadda dunida lagu kaco gaar ahaan kiisaskii ugu dambeeyay ee dhacay ee dilalka ah ee dawladda waaweyn oo dunida runtii ay sameeyeen taasoo dareen weyn ku dhalisay saxafiyiinta dunida daafaheeda ku nool iyo sidoo kale dawladaha midowga Yurub runtii oo dareenkaasi runtii u arkayay inuu ahaa mid dhibaato weyn ku ah saxaafadda taas baa markaa keentay runtii aan ka mid noqdo 1000 qof in ka badan oo shirka lagu soo casuumay oo dawladaha matalayay saxafiyiinta dunida matalayay iyo hay'adaha xuquuqul insaanka iyo civil society-gaba marka runtii shir dood adag dhinacyadaas oo dhan isku weedaarsanayeen buu ahaa ujeedadiisuna ahayd halka maanta la taagan yahay sidee baa looga dhaqaaqi karaa oo saxaafadda dhibaatooyinka ka dhanka ah dawladuhu kula kacayaan runtii looga gudbi lahaa marka dooda adag oo runtii aad u wax badan i taray aniga shakhsi ahaan maadaama uu shirkii ugu weynaa noociisa oo kala ah shirkani uu ahaa runtii ilaa 60 wasiir oo dunida daafaheeda ka yimid baa runtii ka soo qayb galay lagana saaxay runtii sidii balanqaad rasmi ah ugu sameyn lahaayeen maadaama oo in badan dunida lagala hadlay dawladaha ka jira dhibaatada ay ku hayaan saxafiyiinta sidii ay uga dhabayn lahaayeen runtii ujeedada ugu weyn ee la saarnaa waxay ahayd dooda ka taagan in dawladuhu ay ka koraan dhibaatada saxaafaddu hayaan dooda kale ee ka soo horjeeda runtii saxafiyiinta iyaguna ay soo jeedinayeen waxay ahayd sidii looga dhabayn lahaa balanqaadyada waayo marar badan baa ay xukuumaduhu ballan qaadan inay wax ka qabanayaan marka baaqyada caalamiga iyo ururada saxaafadda wadada runtii ay u soo jeediyaan runtii inay dhibaatooyinka ka daayaan saxaafadda marka doodaasi runtii dhinaca hay'adaha xuquuqul insaanka laftooda iyaguna waxay u arkayeen in dhibaatada taagan runtii dawladaha maadaama in badan kala hadleen maadaama fursadan la isku soo wada hor fadhiista runtii ay waxyaabihii ay ka jeedin jireen runtii iyo sidii loo fulin lahaa runtii in ay farta u saaran dawladda waxyaalo badan baa iga kordhay mid iyo labo aad isleedahay shaqada adigu aad u idman tahay oo ururka aad gudoomiye ugu tahay bay wax ka bedeli kartaa ama wax u tari kartaa oo xasuustay ma jirtaa كو waxa kamid maadaama oo arrinka ugu weyn oo ahaa sidii saxafiyiinta badqabkooga looga shaqeyn lahaa runtii maadaama ururka aan gudoomiye ka ahay saxafiyiinta Soomaaliland runtii ururku uu ku matalo sidii badqabkooga iyo dacwadahooda runtii uga shaqeyn lahaa sidii uu xabsiyada iyo runtii dhibaateynta lagu hayo uu uga badbaadin lahaa runtii horena runtii UNESCO aan uga wada shaqeynay oo dhowrkii sano imika u dambeeyay aan ka wada shaqeynay shirar horena aan ka qayb galay runtii oo aanay ahaa qaar heer aanay
qaaradeed ah sida Africa oo kale runtii oo Nairobi oo kale aan ka qayb galay sidoo kale Hargeysa oo kale baaqyadii ka soo baxay shirkii Addis Ababa loo qabtay midowga Africa kii ka soo baxay runtii Kenya aanu Hargeysa lafteeda ku qaban oo gudiye heer qaran aanu ka abaabulay runtii in heer caalami oo globally runtii shir lagaga hadlay aan ka soo qayb galo oo aaraada iyo fikrada la isweydaarsanay runtii oo ah kuwa in badan la saxaafadda iyo dawladaha u dhaxeeyay imkana wax badan dawladaha iyo saxaafaddu runtii ay dareemeen in meel ciliiri ay sii galayso runtii fikradii la soo jeedinay aaraadii lagu xalilay runtii marka dhacdooyinka la soo jeediyo aaraaba la soo jeedin runtii sidii looga bixi lahaa lagu xalil lahaa marka maskax ahaan iyo qof ahaanba runtii halkii aan taagnaa waxaad moodaysay doodaha siday u dhacayaan runtii inay ahaayeen kuwa mashhuura runtii kuwa wax badan iyo furfuray wax badan taray waayo dee dad badan oo aqoon leh dad badan oo dunida hogaamiya ayaa joogay markaa taasi wax badan bay tartay dooda labaad ee runtii aan isleeyahay way tartay wax weey aan soolja ahaanba marka horeba ku dadaalanay gaar ahaan saxaafadda Soomaalida guud ahaan gaar ahaan Somaliland na ka muuqata oo aqoonta mihnada saxaafadda ama aqoonta guud maadaama qofka saxafiga hogaamiye yahay jiheeyay runtii in baahi weyn loo qabo in aqoontii saxafiyiinta oo meelaha dhaliilaha mar walba taagan noocay doonto haatee saxafiyiinta runtii aan lagu dhalilo si iyagu ay ka uga ahaan lahaayeen in badqabkooga runtii ay ka shaqeyn lahayn hay-adaha warbaahinta runtii laftooda iyaga dhaliilaha loo soo jeedinayay ay ka mid ahayd oo annaga lafteedaba runtii aanu dareeno in saxaafaddii ganacsi ay noqotay oo mihnadii runtii meelo badan ay ka guurayso waxyaabaha lagula tacaalay taa runtii aad baa ay wax iga kordhisay walow marka horeba dawladda Ingiriiska ay soo casuuntay runtii baaqa ay naga aqbashay oo jaamacadda Hargeysa ay nooga furtay fakal aqoonta saxaafadda runtii lagu barto oo ilaa imika 70 suxufina ay dhigtaan 70 suxufina sanadkan aan qaadanayno marka waxyaabahaas runtii waxaad moodaysay kuwa in ay hayeen iyo rajo geliyay runtii muddada aan joogo iyo maadaama mihnadeeda saxaafadda tahay runtii aan wax badan ka qaban karin mustaqbalka in ay ugu abuurtay arrimahaas waa gartay haddii aanu dib ugu soo noqono ururkan hadda laba taaman baad ku dhawaad hayso wax yar dhiman markii lagu doortay waxaad ballan qaaday inaad gaarsiin doontid iyadoon wax caqabada iyo iska hormaansho uusan dhicinin qaangaarnimadaas iyo inaan waxba dhexdiina gudihiina aysan soo dhexgelinin oo arrintu si degan ay u socoto ama kuu suurta gashay mise dhicis bay noqotay runtii 4 sano iyo badh baan joogay sida aad sheegtay 2015 baa xubno 15 ah oo hogaanka ururka runtii la nagu doortay anna gudoomiyaanka ahaa wuxuu ururka kooban yahay hogaankiisu 13 rag ah iyo 2 gabdhood buu ka kooban yahay runtii waqtigaas markaan la dooranayay waxa ka dhinaa ururku wuxuu jiray 13 sano marka maadaama oo markaan la doortay 2 sano ka dhinayd ujeedada ugu weyn ee waxa ahayd maadaama oo bini'aadamka uu ku qaangaaro waqtigaas runtii ururkiina uu qaangaar ku dhiyo runtii baahiyaha iyo duruufaha markaa haystay aanu arkaynina waxyaabo badan laga qaban karay runtii in aanu dhexda u xidhan oo aanu wadajir uga qabano hawshaasi sidaan u gaarsiin lahayn waqti aanu ku faani karno runtii in baahiyihii jira ururka markaa ka saarayay waqtigaas qaangaarnimada runtii aanu qabana runtii wax badan baan runtii qabanay haddii noqoto difaaca saxafiyiinta wax badan baan nooga qabsoomay haddii noqoto aqoonta saxafiyiintana runtii wax badan baan nooga qabsoomay doonaa waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo wax khilaaf idin soo dhexgalay ma jiraan oo adiga laftigaaga kugu saabsan inay xubnuhu ka hor yimaadeen dabcan marka group leeyahay la wada shaqaynayo kulan waxa jira 4 bilood la ah aaraa badan baa la isweydaarsadaa ra'yo badan baa la isweydaarsadaa runtii maan arag caqabad fara badan runtii oo muddadaas marka loo eego soolja waqtiyadii hore ay jirtay runtii labadii tiyaaran baa runtii naga hor yimid hase yeeshee jiraan dabcan doodo iyo aragtiyo ka hadlaya marka aad u aragto adigu in wadadaasi tahay tubta aad wax kaga qaban kartaan hawlaha idin hor yaala ama baahiyaha saxaafadda runtii in groupka kale runtii ay u arkaan waxyaabo badan oo dabcan waxyaabaha aan dareemo waxa kamid ah waqtiga xukuumadii jirtay oo kale madaxweyne Siilaayo oo dhul loo ballan qaaday runtii inay nasiiso sidoo kalena maadaama ururku baahiyo fara badan waqtigaas qabay xagga dhaqaalaha oo kale dawladdu naga qabsan anigu arkeen runtii xaq ay saxafiyiintu u leeyihiin runtii in dood fara badan ay ka timid in dawladdu ay dhaqaale dabcan inay ururka kabto sidoo kale dhulkii aan markaa dawladdu ay runtii nasiinaysa oo kale ayaa dood badan ka timid waxyaabahaas leeyahay haddii ay idin suurto galahay isla fahmi lahaydeen markaa maanta ururka qaangaarnimadiisa way sii weliba rukumada u aasi lahayd runtii doodaas oo kale ka mid ahayd markaa doodaas oo kale sidii xubnaha kale ay u arkayeen baa runtii ay u dhacday marka way jiraan challenge fara badan oo
rag waxa waa madaxya afkood baa inay aragtidoodu marka mid walba wuxuu keenayaa dood buu keenayaa marka waxaan qabnaa runtii in ay noo suurta galeen waxyaabaha ugu weyn in 4 biloodba kulanka aanu qabano oo ah runtii caqabad iyada lafteedu doodeeda ahayd oo hore aan ururka uga dhici jirin mararka qaarkood oo kale marka طبعا waxaan isleeyahay wixii aan ku doodaynaba maanta meel fiican baan ka taaganay dawladdu inay idin kabto way ka gaabisay sheegaysid haddii dawladdu idin kabto waxa tahay shakhsi la biilo haddii lagu biilo xormatiida xaqiiqada kama warrami kartid ilaan af wax cuna xishoo baa lagu yiri sidee arrintaas iyo in wax dhabta oo jiro shacabku inuu ogaado loo baahan yahay oo ka dhan musuqmaasuqa ka dhan cadaalad darrada ka dhan dhibaatooyinka warbaahinta loo geysto shaqaalaheeda sidee u fulinaysaan haddii marka horeba arrintu sidaas ay tahay waxa muhiim ah in la kala saaro laba arrimood dabcan saxafiinta ama hay'adaha warbaahinta iyo ururada warbaahintu waa laba arrimood oo kala duwan runtii cidda midiyada daabkadaas wax qorta waa saxafiinta anagu waxa u doonaa saxafiinta marka cidda rasmi ah runtii doodu ay tahay inay ay ka madax banaanaadaan inta badan waa saxafiinta ninka saxafiga wax qoraya ee dadka hogaaminaya laakiin urur markay tahay ururku danaha saxafiintu ka shaqeeya danaha saxafiintu runtii meel kasta way galayaan laakiin maxamuud waxaan rabaa inaad ila fahantid si wanaagsan af Soomaaliga in badan iga badsan jecelahay haddii ururka dawladdu ay kabto ururku ma difaaci karo wariyaha laga gardaran yahay kan lagu takrifalayo dhibaatada saxafiinta loo geysto ma difaaci karo maxaa yeelay waa lagu biilaa is simple straightforward su'aal ma aysan ahayn طبعا dad badan baa aaminsan sidaas laakiin waxaan qabnaa taa tu ka duwan baan qabnaa imika waxaan la shaqeeyaa hay'ado fara badan baan la shaqeeyaa hay'adahaasi faraha badan la shaqeeyaa waxay salka ku hayaan dawladda ku hayaan NERBA kamid ah oo ah hay'adda u shaqeysa ama u adeegta ama dhaqaalaha loo mariyo dunida Mareykanka sidoo kale Ingiriiska oo kale FCO baan la shaqeeyaa dawladda Ingiriiska toos u bixisa waxa sidoo kale la shaqeeyaa IMS waxaan la shaqeeyaa hay'ado kale fara duwan oo sida Free Press oo kale Holland laga leeyahay طبعا hay'adahaasi dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan waxa ka keenan dalalkooda dawladaha bixiya in Soomaaliland ahaan anagu dawladeeda aan ku tiirsano wax noo diideen ma jirto maadaama muwaadiniin ay cashuur bixiyaala wax caqabad ah nagu keentana haba yaraataa arrintaas ma jirto waxaanu ku waliba haysanaa dawladda intii aanu ka doonaynay waliba inaan ka helin waa gartay si ururada ka hadlaysid ururo waaweyn oo dunida laga intiraafsan yahay weey مثال waxaan ku siinaa wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriisku BBC oo kale waxa iskala dawladda Ingiriiska wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriisku uma sheegi karto qofka wariyaha Ingiriiska wuxuu qoraya iyo inuu sheego ama fashiliyo dhibaato dawladdu ay wado laakiin gudaha markaad joogtid adigu aad gudoomiyihii tahay iyo ururkiina aad intiina xubnaha ururka ka ah ay mushaar la idin siiyo ama si kale la idin biilo nimanka maxkamadaha jooga aad garbaha ku xoqeysaan oo wasiirada la qadeynaysaan oo la casheenaysaan qofka wariyaha tacadiyada loo geysto kalsooni fara badan in kama arka Soomaali maxaa yeelay jeebkiina iyo calooshiina ku shaqeynaysaan waa sida eedayntu ay leedahay طبعا sida aan ku soo sheegay ururku haba yaraatee marnaba dacwad saxafiyeed ama dan saxaafadeed kama habsaamin lacag dawladdu ay siisay ajligeed waxaan qabnaa runtii xaq aan u leenahay waliba inta in ka badan waxaana runtii kharashkana la siiyaa uu ka yimaada dakhliga laga ururiyo ama cashuurta dadka laga ururiyo anagu aanu ka midnahay hay'adaha warbaahinteenu waa adeegnaa cashuurta lafteeda baarlamaanka ayaa la mariyaa oo miisaaniyadda qaranka meeqa la siiyaa lacagtana la siiyaa waxa weeye ilaa iyo $30,000 weeye adiga meeqa ka soo gaar ahaan ka soo gaadha ururka waa hanti uu leeyahay ururka ku shaqeeya adiga maxaa ka soo gala anaga waxba naga soo galaan boardka saad la socoto hay'adaha civil society ga leedahay ama u dooda dadka volunteer ba ku shaqeeyaan wax haba yaraatee ka soo gala soddonka kun adiga shakhsi ahaan waxba kama soo galaan طبعا ururkay galaan saan ku sheegay xubnaha boardka kale xataa ma galaan saxafiintana ma galaan kirada maadaama uu ka dalbanay dawladda inay xarun noo dhisto sidoo kale tababarada iyo jaamacadda lafteeda ay naga kabto oo kale waxyaabahaas loogu talagalay marka dawladdu ballanqaadida ay noo sameysay runtii qayb kamid ah weeyaan oo ay awoodi weyday oo runtii ilaa hadda aan ku daba taaganahay dawladdu in ay sidaan uga dalbanay runtii u sameeyay maxamed aad ugu celcelinaysaa dawladdu inay ka gaabisay dabcan anigu dawladdii kama socdo markaad gudaha tagtina wad kala hadli doontaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado 30,000 see u qaybisaan marka laga saaro kirada iyo waxyaalaha la midka maxaa lagu qabtaa
dee waa howlaha xafiiskunba ku baxda iyo dacwadaha saxaafadda maadaama oo dacwadaha saxaafadda runtii hawsha ugu badan iyo culayska ugu badan ay nagu hayso oo maalin walba aanu maxkamadda taaganahay sidoo kale hay-adaha naga caawiya oo qayb weynka ayagana runtii sida dacwadaha oo kale hay-adda IMS baa naga bixisa 2 lawyer oo joogto ah baa runtii aanu u haynaa oo ay u hayar garaysay hay-adaas dhaqaalaha lagu siiyo marka ururka iyo saxafiintuba runtii dee howlo adag loo qabtaa howlo adag u baahan in runtii laga saaro waan ognahay duruufaha dee saxaafadda Soomaalida oo dhan haysata gaar ahaan dunida oo dhan caynkaas oo kale dhibaato caynkaas lamida waxyaabaha shirkan lagaga dooday runtii bay kamid ahayd dawladaha lagu dhiirigelinayay in ay wax ka qabtaan waxyaabaha anaga nagu khasbay waliba in aanu dawladeeda runtii baahiyahaasi qayb kamid aan ka wadiisan waxa kamid ah xeerka saxaafadda ee dalka u yaala iyo dastuurka dalkuba ku amraya in ay kabaan oo ay horumarka saxafiinta runtii ay ka shaqeeyaan okay waxaan rabaa inaan waxa la idin siiyay saa u shaqeysan halkaas wax yar ooga baxo oo qaybaha kale u galo nasiib wanaag waxaad ka dhawaajisay xeerka saxaafadda Soomaaliland ilaa hadda waa qabyatan ognahay waa maxay caqabadaha hortaagan oo dhammaan la yahay mise qabyo unbuu iska ahaanayaa sida dastuurkii dawladda federaalka oo kale weligees ka socda saa la socoto Somaliland waa marka loo eego mandaqada dalka xurriyadda saxaafadda iyo madax banaanida runtii ay ugu wanaagsan tahay weeyaan taa iyadoo ka faa'iideysanaysa 2003 baa xeerka saxaafadda Somaliland la sameeyay dabcan dawladda waqtigaasi talada haysay daahir riyaale kaahin baa muddo dabadeed waxay dalbatay in amendment lagu sameeyo xeerkii iyadoo ay u arkaysay runtii xeerkaasi in aanu dhammaystirin ama uu qabi yahay duruufta lagu sameeyay runtii markaasi ay adkayd in hay'adaha warbaahinta jireen marka ay koobnaayeen tiba waxa keentay marka in muddo dheer qaadato in amendmentkii lagu sameeyo imika xeerkaasi sanadkan 2018 dabayaaqadiisii baa xukuumadda loo gudbiyay si wada jira waxa uga shaqeeyay ururka oo hogaaminaya waliba tiimkii ama groupkii ka wada shaqeynayay ururada bulshada rayidka iyo wasaaradda warfaafintaba marka waa u gudbinay ilaa hadda gacanta wasaaradda warfaafinta ayuu ku jiraa xeerkaas qorwa laga rajeeyo soo dhamaado wuu dhamaaday xukuumaddu baa loo baahan yahay inay marso nidaamka sharciga ah sida baarlamaanka oo kale okay TV-yada madaxa bannaan ee Soomaaliland ka howlgala dabcan qayb kama ahan arintaas xeerka sidee baa loogu fulinayaa xeerkaas haddii ay qayb ka yihiin marka hore horta saxaafadda Soomaaliland ururka matala xubnaha ururkuna waxay ka yimaadeen hay'adaha warbaahinta hadday noqoto TV-yo hadday noqoto jaraa'id iyo hadday noqoto social media-ba sidoo kale ururku isagoo muhiimadda ay leeyihiin saxafiinta Soomaaliland iyo hay'adaha warbaahintu uu ogsoon yahay baa kulamadii aanu qabanay ee caasimadda aan ku qabanay iyo gobolada oo dhanba dhammaantood ay ka wada qayb galeen marka ta keentay in xeerkaas uu socdo qayb keena waana ku qanacsan yihiin طبعا okay wahagaag waxaad sheegtay in mandaqada marka la eego maanta ay ugu wanaagsan tahay saxaafadda Soomaaliland inay xor tahay oo wax tabiso markii aanu ballan ani adigu kadib waxaan bilaabay inaan la xiriiro wariyaal fara badan oo gudaha ku sugan iyo kuwa ka cararay Hargeysa labadaba 11 wariye ayaan la xiriiray oo aan magacadooda ku sheegay qof qura mooyaane qofkaas dabadda wadanka ayuu ku sugan yahay imanka aan kula hadlayo 11kooda waxay ii sheegeen 9 kamid ah waxay ii sheegeen maanta maalin ay ka xun tahay saxaafadda Soomaaliland ay soo martay ma jirto dhinaca caburidda cagajugleynta iyo handadaada joogtada ah maxaa kala daarinta dabcan Soomaaliland jirtay ama xukuumadihii kala dambeeyay mid walba saameynteeda ayay lahayd dabcan hase yeeshee markaan guud ahaan ka hadlayno mandaqada aan ku noolahay hadday noqoto geeska waliba inta Soomaalidu ay degto hadday noqoto dawladaha dadka Soomaalida ay degaan Soomaaliland runtii hadday noqoto xorriyad iyo hadday noqoto nidaamka sharciga ah runtii walow aanu tabayna hadana wax badan inay maqan yihiin hadana waxa qabnaa runtii in ay meesha ugu wanaagsan ay tahay aanu ma ogi hal saxafi oo runtii uga maqan Soomaaliland dhibaato ay xukuumadda Soomaaliland runtii ku hayso oo maana taas laakiin waxaan rabaa inaad ka jawaabtid 11 wariye oo gudaha Hargeysa maanta ku sugan iyo magaalooyinka dhadhow kulligood waxay isku raaceen in ay maanta meeshii ugu foosh xumeed ay marayso waa si hadalku yiraahdeen waxaan ku iri magaciina ayaan TV ka sheegay raalli ma ka tihiin way diideen ayagoo cabsanaya awgeed ma waxa la leedahay raggaas been bay sheegayaan wariyahaas iyo gabdhahaas
sidaan anba kuu sheegayo maadaama aanu danaha saxaafadda matalo oo ururka dee aan hogaaminaya uu ka shaqeeya danaha saxaafadda dhibaatooyinka aan kuu sheegaya ee ah kuwa ku dhiman in runtii la fuliyaa sida tan dunida ee aan maanta kasoo galabee looga hadlayay waa wax dee jira oo aan la dafiri karayn in caqabada jiraan in wax badan in wax laga qabto in loo baahan yahay ay jiraan laakiin caqabadaha jira ereyga caqabado waxa weeyaan markaas saas u dadka qaarkood waxay u fahmi karaan wax yaroo sahal oo u baahan in access loo siiyo madaxtooyada qofka galo oo kale in waraysi loo fududeeyo kale arrintan ka hadlayna ma aha waxaas waxaan ka hadlaynaa cagajuglayn waxaan ka hadlaynaa xabsi waxaan ka hadlaynaa mararka qaarkood jirdil dhaca waxay nimankaanu ka hadlayaan iyo gabdhahaanu ma ahan caqabado yimid ma ahan waa cagajuglayn ay ka shaqayn la'yihiin hay-adaha dawliga ah haddii ahaan lahayd kuwa amniga iyo haddii ahaan lahayd wasiirada qaarkood u cagajuglaynaya habeenaya maalin oo la carhadla waxaan qabaa anigu marka Somaliland laga hadlayo in ay ka duwan tahay dooda taala ta aad adigu u dhigayso waayo waxaan qabaa dadka saa u dhigaya in ay badka yimaadaan oo sheegaan runtii inay wanaagsanaan lahayd laakiin waan qabnaa duruufo fara badan baa jira oo saxaafadda Somaliland in ay shaqadeedii gudato ma jirto cid Somaliland isku cagajuglaysay in isku samaysa jirdil toona sida aad hadalka u dhigaysa ama dadka aad kula soo xidhay ama aad la xidhay ay u dhigayeen habeerato total ma jirto Soomaaliland ma aragtay nin wariyaa kaamaradu wata hadda ka hor oo askari oo xabad lugaha kaga dhufanayo hortiisa xabadu ku dhufanaya isagoo doonaya meel inuu galo runtii kiiskii noogu adkaabuu ahaa kiiskaas intaada kiiska u gelinin arrintaas sharciga Soomaaliland ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana sharciga Somaliland marka la eego saxafiga Somaliland waxa xaq loogu leeyahay runtii inuu badqabkiisa ka shaqeeyo sidoo kale mas'uuliyadda dawladda rabnaa wax ka ogaano si mushkilada meesha ka jirta waxa weeye waxyaalo badan baad isdhex yaacinaysaa waxa anigu aan rabo way cadihiin ninkaas sida loola dhaqmay xeerka saxaafadda adigoon u gelinin iyo wariyaha inuu asagu marka hore meel khatar uusan gelinin naftiisa uusan haligin dhibaatana uusan keenin dadkaasna dhibaato uusan keenin iskuma hayno oo wax wanaagsan in nin askari uu rasaas ku furo halis naftiisii uu geliyo cagajuglaynta iyo cabsida ka weyn waa maxay dabcan marka laga hadlayo saxaafadda ama mihnada saxaafadda waajibaad baa saxafiga saaran mas'uulkana waajibaad baa saaran askarigaasi sidaan u aragnaa waa kiiskii noogu adkaa ee aanu la kulanay ma khaldana mise waa saxsanaa askarigu wax badan oo badbaadiyey oo runtii khatar keeni lahaa oo intan ka darnaa baa jira maadaama suxufigu aanu xaq u lahayn inuu askari qorisi taa askarigu ficilkuu sameeyey ma ku khaldanaa mise waa ku saxsanaa askarigu inuu wax badbaadsho nabadda u taagan yahay horumarka iyo nabadgelyada Somaliland ay haysata inaan la taabanin cidii ka hortimaadana la iska celiyo iskuma hayno ummadda Soomaaliyeed baa ku nool sharaf iyo karaamo iyo kala dambeyn iyo wanaag inay ku noolaadaan baan doonaynaa waxaan ku weydiinayaa maahan askarigu inuu ninkaa rasaas ku furo xaq miyuu u leeyahay mise uma lahayn ma ku saxsanaa mise waa ku khaldanaa dabcan waxaan u aragnaa anagu baan ku odhi ama si ay tahayba dee sharcigu yahayba in saxafiguna uu dhowro xuquuqda askarigu ku leeyahay ama xuquuqda mas'uuliyiintu ay ku leeyihiin askariga laftiisa iyo mas'uuliyiintu ay dhowraan xuquuqda saxafigu ku leeyihiin askarigu ficilkiisa ma ku khaldanaa mise waa ku saxsanaa askarigu wax badan buu badbaadiyey khatar intaa ka badan oo askarigaasi saameyn kari lahaa laakiin waxaan u aragnaa inuu askariga haddii aadan rabin su'aasha inaad ka jawaabtay kama jawaabiya dheh laakiin kama gudbayno su'aasha inaad maaragtay geesaheeda ku wareegtid kama gudbayna awgeed haddii ay tiraahdo kama jawaabayo su'aashaas waanu ka gudbaynaa laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo askarigaas ficilka uu ku kacay oo ah rasaas inuu ku furo nin kaamarad wato oo aan hubaysnayn midi wadanin xabad wadanin inuu rasaas ku furo ma ku khaldanaa mise waa ku saxsanaa haddaad daawatay muuqaalka haddaad daawatay muuqaalka askariga kumuu ridin saxafiga kumuu ridin dhulkiisuu ku riday runtii waana waxa ku kalifay runtii sidaad daawatay ama aad arkaysay haddii adiga kula saxsantahay haddii kaleba aniga su'aasha ima qosaysa in wariyuhu uu khatarta isagu gelinaya askariga waxaan aragnaa askarigaas runtii inuu soo khatarta u geliyo maadaama wariyuhu uusan hubaysnayn xabadna wadanin dagaalna uusan soo soconin dabcan wariyaha marka askarigu xabad buu haystaa qori buu wataa rasaas ka buuxdo qof faramaran oon hub haysanin oon dagaal u soconin baa ay cabsi geliyey what language is speaking waxa haddaad daawatay filmka ama haddaad daawatay dee muuqaalkii meeshaasi laga duubay runtii waxaan u aragnaa anagu in askarigaasi uu badbaadiyey suxufigaasi khatar intaa ka badanna uu suxufigu lafihiisa geliyey askarigana runtii uu gacantiisa dhig dabcan marka ay noqoto in uu xaqii iyo xuduuddii uu lahaa ka tallaabo saamaynta ay ku keenayso cid walba way dareemaysaa hase yeeshee waxaan qabnaa askarigaas runtii in badan inuu iska dhowray 15 mitir
ayuu dib uga socday ninkaas xufiga halkii uu ku joojiyay marka hore kiiska hadda la socoto muddadii uu socdo dhan Gebile baan tagi jiray waan ka qayb galay markhaatiyadii meesha la keenay runtii iyo fiidiyoga documentary-ga la duubay runtii cadeymaha uu muujiyay keentay in la xukumo ay ka mid ahayd ay ka markhaati kaceen dadkii in ay askariga 15 talaabo goobtii uu ku joojiyay ay isla gaareen hase yeeshee wariyihii kamaramaanka ay duubay runtii waxyaabaha kiiskaasi loogu waayay in wax dambiya galay maxkamaddu ay ku sii deysay ka mid ahaydba halkii uu ka duubay askarigu ku joojiyay inuu joojiyo marka xaq uu askarigu leeyahay waa la amraa amaankii uu sugaya suxufigu maaha in uu markaasi runtii jiro hase yeeshee waxa qabnaa dooda markaan sii guda galo maadaama in badan aad ku celcelisay runtii waxyaabo badan baa dhaca oo qaladka keenaya saxafiintu waxyaabaha aan ka doodno anagu aan u arkayna inaan kaas xufiga ku khasabtay inuu dagaalka inta laga culayska inta laga keeno runtii baa kamid ah waxyaabaha inta badan runtii aan background uga dhigi karno inaan ku dareenka inta lag galo oo ah runtii in uu ku cabanay ama cabashooyinka aan ka hadalno mar walba in dhowr jeer hore laga celiyay goobo uu doonay inuu warka duubo marka waa qabna in cidda amartay askariga inaan ka wariyay ka doonayay warka ay qaldaneed oo inay ka hor istaagtaan ahayn ta keentay markaa ficilkaas inuu dhacaan runtii in ay sababeen mas'uuliyiinta markaa askartu amraysa ama askarigu ilaalinay inay tahay hagaag ala kulli xaal adigu waxaad aaminsan tahay arrinta inaan ka tagna doona waxaad aaminsan tahay cameramanka inuu khalad ka lahaa wariyuhu khalad ka lahaa cameramanka gacanta ula tagay wariyaha askarigu ula tagay we moving on waxaan u deenaynaa insha Allah taala dad gudaha jooga ayaga falanqeyn doona waxa tiri ma jiro qof wariye ah oo Soomaaliland cabsi oo iyo walwal uu ka qabo awgeed oo gaga tagay ma jiro wariye teerar maxaa kala ilaa hadda ma ogin cid dacweysay ama cid isagoo ka cararay oo runtii dacwad u daba taagan wariye tara hay documentary aad loo xiiseeyo ayuu sameeyaa kana sameeyay Soomaaliland Muqdisho ka sameeyay meel kala duwan ka sameeyay foodana saaraya indhahana ka ridaya maamulka iyo nidaamka markaas jira ma waxaad leedahay waxa uu sameeyay awgeed uma cararin asaga iska tagay dabcan marka qofka la leeyahay uu cararay ama la leeyahay qofka tahdid caynkaas ku timid ficliyan marka loo arko ama sharciyan marka loo arko labada mid u bay noqonaysaa anu inta aan ka ogahay ma jirto cid handaday iyo sidoo kale cid dacwad ku oogtay Cabdirasaaq waxaan arkaa in isagu dana uu leeyahay inuu uga baxay dalka ma ka war haysaa dawladdu inay u caga jugleysay oo la yiraahdo hadii la arko hala soo qabto xabsina hala geeyo ma maqan ilaa hadda ka war ma haysaa waa hagaag oo ka gudbina adiga shakhsi ahaan eedayn fara badan baa lagu soo jeedinayaa saxafiyiinta gudaha Soomaaliland ka shaqeysana ku soo jeedinaysa waxa kamid ah adiga iyo dawladda isku milanteen oo saan horeyba u sheegay wasiirada aad garbaha isku xoqeysaan iyo dawladda sida awgeedna shaqada aad haysid aysan daacad ka ahayn maxaa ka jira adiga dawladuna isku milanteen oo idin kala garan kari laayay runtii cidda eedaasi sheegaysa inay iyadu soo bandhigtaa wanaagsan anu laakiin intaan qabo dawladda cidda ugu adag cidda ugu dhaliisha sidaan imikaba u dhaliilaya runtii baan ahay runtii xukuumaddana marnaba aanu kama shaqaynin minad ahaana runtii marnaba taariikhdeeda waa la hayaa wargeyska waa hayn wargeyska ugu kulul saxaafadda Soomaaliland baan hogaaminayo editorka gudoomiyana ka ah intaan ururka joogana imika runtii cid walbaaba waxa aan qabto saxafiinta Soomaaliland dad wareysto way ku sheegi karayaan ayaga laftigooda ay sheego igu yiraahdo dawladdu waa isku milantay ma jirto cid arintaasi cadeyn karaysa waa la iska oran karaa waa la isku milmo waxyaabo cadeyn karaysa ma jirto ma waxaad ka wadaa magacyadooda halkan kama sheegi kartid ma jirtaan kulay liiskan halkan ku haya magacyadooda laakiin cabsi ayagu naftooda u baqayaan baan u sheegi karayn والله حفلة ترى waxaan ku sheegay gudaha ayuu ka maqan yahay Hargeysa saxafiintu dawladda ay tahay malaha ka cabsanayaan hadda malaha xuutay solsha kama cabsanayaan inay sheegaan baahid laakiin adiga kama baqanayaan runta marka la sheegay adiga laga baqanay adiga waxa lagu eedeynayaa saxaafadan inaad lug kula jirtid dawladana lug kula jirtid labada dhinacba aad maaragtay ka dhuuqaysid oo aadan marnaba doonaynin in la isku dhaco wax walba aad doonaysid inaad si qabow ku dhameysid wax lagu eedeynay xasuuya horta aanu muwaadin baan ahay xaq baan leeyahay gudoomiye ururna waan ahay xaq baan leeyahay nidaamka maamule aan gacanta waan runtii duruufo fara badan buu leeyahay oo runtii cid walba dareemi karto intaas oo dacwad baa maalin walba gala suxufiin baa maalin walba xuquuqdooda doona suxufiin baa maalin walba ka soo deynaa xabsiyada ka soo deynaa suxufiin baan wax barnaa waxyaabahaas oo dhami waxay u baahan yihiin runtii
hawsheeda u baahan yihiin adii dawladdu iskuma milmin aniga dawladda wax naga dhexeeya ma jirto waanan kulaba dawladda wax badan oo saxaafadda inay xaq u leedahay ay siiso baa maalba ka hadla imikana hortaada ka hadlaya oo xukuumadihii kala duwanaa Soomaaliland soo maray midna waxba uu ku wanaagsaneed waxna saxaafadda way kaga gaabinaysay marka waxa qabnaa runtii saxaafadda Soomaaliland in ay xaqeeda hesho dawladda ka hesha inay muhiim tahay haddii noqoto in taxadiyada laga daayo haddii noqoto in xariga laga daayo haddii noqoto in aqoontooda la dhiso haddii noqoto in xarun ay ku tababartaan la siiyo maadaama mar walba cabashada saxaafadda ay ka timaado aqoon la'aanta saxaafadda ama aqoonta saxaafadda oo yar ama iskuulle aan jirin waxaa qabnaa dooda ugu badan ee imikana hortaalla inay taa tahay walow dawladda ingiriisku saan kuu sheegay dee naga kabtay haddana xukuumadda waxaan ka doonaynaa in iyaday dan u tahay qarankay dan u tahay saxafi aqoon leh saxafi tababaran in la helo waayo waxyaabaha maalin walba ku dhaleelaysa saxaafadda baa meesha ka bixi lahaa war la'aanta maalin walba ay saxaafadda badayso baa meesha ka bixi lahaa dhacdooyinka maalin walba laga yaabo qaarkood in war la'aanta dawladda darteed meelo badan ay waxyaabo qalad ka yimaadaan baa meesha ka bixi lahaa marka anagu waxaanu ururka ku hogaaminaa saxafiyiinta Soomaaliland ku hogaaminaa in xuquuqdooda iyo madax banaanidooda runtii ay helaan marnaba kama habranataa waa gartay waxaad ka hadashay in xabsiyada laga daayay tacadiyada wariye cabdimaalig muuse coldoon nin geyga Soomaaliyeed caanka si fiican loo yaqaano way adigana shakhsiyan isku taqaanaan hadda ka hor wuxuu tagay xarunta maamul goboleedkan orane wuxuu tagay magaalada Jigjiga Soomaali galbeed ayuu tagay waxaadna sheegtay in cid ceyrsatay aysan jirin iskiisa uu tagay halka ma xasuusta arrintan tiri طبعا ha of course asaga miyaad la hadashay oo afkiisa ayaad ka wareysatay in cid ceyrsatay aysan jirinin see ku ogaatay adigu وانا كله سيد مكي ويديسا عبد الرزاق ترى يساعد ويديسا سجال صحفيه كذا شيء يسوي كل دباتين كاس أنا جرا أورك ما دام ودي مسؤولية دي هي أورك حبناها أورك كمية أما صحافة السومال برد يعني دي ويس كور هيسا ما له وحبه وما كلا كرسون لكن أظن موعظة ما الله هذا الشيء ما تري محاكا عيري هل كان أو Soomaali galbeed مكي هو يديس إيش أسك أنا ما ويدينين حق مكوولها أنت هذا صحافة السوق استاجين هذا هو بستين ما دام الصحافي هو هذا أورك كان هذا قدومي أطها إن نعكلا وريستين وأدور إن عورك هاي دولتنا ورك هاي أمدي سهر استاجتوا ذلك هذا شيء ما يسمى كهبونين إنسان كل شيء جد أنا ما دام أورك هو جامنه أورك معلوم والبو حياة صحافة السومال لسه درسه وأورو هنا وحبناها أورك هردن حبناها صحفيين تدلك جوار هذه أدورو هين محاكوك اللي فينا صحافة دور استاجتوا عبد الملك عدو معير سنين إما كابو كلها بعد عيرتين يسمر كان بيشرين right أستجيب أنا أفكي كل هذا waxa uu ka cararayoon ii sheegay adigu hawshaadii basic ahayd ayaad gabtay oo ahayd inaad inta la hadashado wacdaad tiraahdid maxaan ka caawinaa maxaa ku ceyrsaday oo gurigaaga iyo reerkaaga ka dhex saaray oo annagu urur ahaan aan ku qaban karnaa maanad oranin maxaad u oran weydo ka hor istaagay ilaa saxaafadda waqti oo heshay waxaan ku imika boodiga sheegay saxafiyiin deela waanu ka tagnay dalka sida marka imika baan ku leeyahay ma jirto ayaani marka u jirin cid markaasi عبد المالك عيرسنيسي we'll come to that inaad ogeydii in kale cid ku ceyrsatay waxaan ku weydiiyey straight forward su'aala waxay tahay cabdimaalig maxaa uu cuweyday maadaama gudoomiyihii ururka aad tahay u oran weyday nin saxafi aad tahay waxaan maqlay inaad meeshii ka tagtay yaa ku ceyrsaday maxaan kuu qabanaa maxaad u oran weyday haddii aan su-aashaada ku caddeeyo anagu Soomaaliyan ahaan jughraphically waxaanu dee leenahay xad baanu leenahay saxafiyiinta Soomaaliland intaanu qaan maamulaa waa wixii xadkaa ku jira haddii aan markaa iman culays ama cadeymo muujinaya inuu qofkii ka tegay markaasaan kuu sheegay may jirin culays ama cadaadis aanu ognahay oo markaa cabdimaalig muuse codoon uu dalka uga tegay su-aasheeda kamaad jawaab no adiga eeg ami anu sabab aanu la hadlaa baan kulmada maadaama jughraphically deegaanka Soomaaliland aanu markaasi ku sugnayn qofkii wariyaa oo ka baxa xayndaabka iminka aad sheegtay oo dhibaato sheeganaya ama run ha ahaato ama beenba ha ahaato adigu ma waxa leedahay gudoomiye ahaan wax xil igama saarno qofkaas maalin walba saxafiyiinta Soomaaliland waxay u socdaalaan Soomaaliya waxay u socdaalaan gobolada jaarka aanu nahay wax xil ma ka saaray yaga xaq u leh qofku inuu socdaalo urur ahaan anagu xaq uma lihin mas'uuliyadna ma saarna qofku hadduu socdaalayo meesha uu tagayo isaga xaq u leh kuma weydiin meesha uu tagayo cidna kuma weydiin fiisa ma u raadinaysan oo kuma weydiin si kala hadalkaygu dhigtay adiga waxaad gabtay baan ku eeray shaqadaadii aasaaska ahayd inaad ku tiraahdid war maxaan ku qabanaa naa waxaad keentay oo tiri wuxuu ka baxay deegaanka anagu ka shaqeynayno ka baxay soo su'aashan waxaan ku weydiiyay waxay tahay mid ka mid ah wariyaasha hadda Hargeysa iyo ama Soomaaliland ka howlgala baa baxay wuxuu tagay xaafadaha jaarka in ku weerarsan buu tagay soo qaad dhibaata soo gaartay xaq ma uusan kugu lahayn qofka wacdo weydiisay xaaladdu say tahay waxa uu qaban kartay haddaad la socoto
taariikhda cabdimaalik ama dee qofku xaq ma kugu leeyahay mise kuma laha ami cabdimaalik saa la socoto xamar wuu tegey wuu soo noqday jigjigu tegey wuu soo noqday xaq uu isagu leeyahay qofku inuu socdaalo weyn kuma weydiin socdaalkiisa anaga mas'uuliyad saxafi ahaan inaanu kaantano maxamuud mudane socdaalka qofku kuma weydiinin waxaan ku weydiiyey qofkii wariyaha dhibaatada tabanayay ee meesha ka tegey xaq ma kuugu leeyahay maadaama aad guddoomiyihii tahay ururka inaad difaacdid oo xaqiisa usoo dhicisin aad u taagan tahay inaad tidhaahdid war maxaad dhibsatay oon kaa caawinaa ka urur ahaan hadduu yidhaahdo anaa meesha isaga tegay waa gooni oo wax la yaqaano hadduu yidhahdo dhibaatadaana jirto wax la yaqaano sababtuna waxay tahay wakti baad u heshay inaad soo istaagtid saxaafadda oo tidhaahdo cabdimaalig muuse coldoon ciduma cayrsanin laakiin wakti ma aadan siinin umana aadan cadaalad falanin inaad taleefon ku wacdo oo tidhaahdid maxaan kuu qabanaa maxaad tabanaysaa ma aanad odhanin arrintaa ma qiranaysaa mise ma qiranaysid aniga cabdimaaligna ilamuu soo xidhin maadaama midna asagoo kula soo xiran adaa mas-uul ah qofka saxafiga ah anagu urur ahaan dhacdad markay dhacdo siyaabo fara badan baanu ku ogaanaa meel laba siyaabaha iyo standarka aanu runtii ku shaqayno cabdimaalig kiiskiisu marnaba nagamuu soo gelin hadday isaga noqoto iyo hadday xukuumad noqotoba dana lamu soo xidhin anana sabab aanu nin xamar joogo ula xidhiidhno haba yaraatee ma jirto hadda mas-uuliyadda nagama saarna markaas magaaladu ka baxay dabcan somalilan qofku hadduu ka baxay xadkeeda waxaan rabnaa hoos ka xirana because wariye badan oo somalilan jooga caawa ku daawanaya oo aad guddoomiye u tahay qofkii somalilan banaankeeda u baxa xuduudkaas hadda noo sheegtay jigjigoo ninkaan tegay just around the corner ah qofkii ka baxa oo warbaahinta somalilan ka tirsan adigu shuqul kuma lihi ururka dabcan kuma lihi okay that's very good I just want to know that waxaan kala simanahay sida halka aan maanta umid xuquuqda saxafiyiinta dunida oo dhan ay isku leeyihiin markay mushkilad timaado in qofkii aanu sida ay wala damqanayaan kor ula damqano laakiin markuu jigjiga tagayna ma jirin sabab cabdimaalig uma aadan daqanin because telefoon intaan u dirtay maadan weydiinin wuxuu gurigiisa uga cararay loo damay dhicin ba dhib jigjiga ka qabsatayna ma dhicin markuu joogay dhib xamar ka qabsatay ma jirin hargeysa markuu ka tagayna dhib ka qabsatay oo uga tago aan cad oo muuqato oo aan oran karto cabdimaalig taasaa ku dhacay ma jirta haba yaraatee cabdimaalig afkiisu igaga warramay cidna maana weydiin anaga noo sheegin hadduu warmeed wuxuu qabato markaa anuguna wuxuu qabtay igama raadinayna anugu waxaan raadinaya xog baan raadinaya waxna kuma dhicin haba yaraatee total waxa ku dhacay uma hadli kartid because waxba kama ogid sababtu waxay tahay ma aadan wicin markii inaad tiraahdo waxba kuma dhicin ba Soomaaliya la jooga ana ururka matala saxafiyiinta Soomaaliya dhan meel baa ku Raalo Maxamed afkiisa wuxuu iiga sheegay caga juglayn kaamarooyinkiisa in la burburshay xafiiskiisa in la weeraray qalabkiisa in la qaatay inta baad ogtahay oo ka warqabta haba yaraatee xukuma jirin marka hore uu sheeganay inuu ka tagay dalka haba yaraatee wax aliyaal wax lagu sameeyay xafiiskiisa in la weeraray maxaa ka jira kama jiro waxa marka kaamarooyinkiisa in la qaatay maxaa ka jira waxba kama jira marka ururka soo jeestaa la socoto gobolada Soomaaliya oo wakiil ku leeyahay xubnaha boardka qaarkood baa kamida gobolada kuwa jooga iyaga noo soo report gareeya haba yaraatee waxa gobolka wakiilka Soomaaliya soo jeeda gobolkaas cadeeyay soo sheegay haba yaraatee waxa cabdimaalig sheegay ka jiray haba yaraatee ma jirin waxaan rabaa arrinta cabdimaalig inaan dhinaceeda kale u gudbo halka qayb uga baxo arrintaas markuu jigjigay Soomaali galbeed tagay waxaad noo sheegtay inaadan adigu la xiriirin waxa uu tagayna aadan waxba ka ogeyn toma laakiin waxaad ogtahay wax loo cayrsinaysan jirin dawladda ma ku waranta adig see ku ogaatay dee sano kale wakiilaan gobolada ku leenahay may dawladda ma ku waranta arrinta dawladda ka weydiisay dawladdu marka ay saxafi dambi ku oogayso dee hay'adaha sharciga ah martaa hay'adaha sharciga aan ku ogaana sidaan ku sheegay looyaraan leenahay maxkamadaha jooga hotline system ah baan leenahay qof kasta oo saxafi oo dhib ku dhacda isla saacada dhib ku dhacday aan ogaano saxafiyiinta hadaan isagu xataa awood u helin inuu soo report gareeyo saxafiyiinta soo report gareeya kaasan markaa baan kaga howlgalaa markaa ma jirin total haba yaraatay saacada looyarada labada dadka u qabataan ku dawladda lacagta sistema may IMS basis okay good cabdimaalig haddana waxay dul joogno waxaan hayaa video ama muuqaal aan ka soo duubnay Mubaarak Cabdi oo ahaa lawyerkiisii laakiin waxaa isoo gaaraysa muuqaalkaas in lagu soo socdo hadii ilaahay wax kadib intaana muuqaalkaas u gudbinin waxaan rabaa si cad inaan su'aal ku weydiiyo xariga cabdimaalig 8 bishan iminkaan ku jirno 2019 lagu xukumay ururkaaga soo warkay adig sida aan ku sheegay maadaama aanu difaacna saxafiyiinta saxafi cabdimaaligna marka uu hargeysa ku soo noqday ama burco ku soo noqday la xiray ururahan anagu mas'uuliyadii naga saaray waa ka gudanay labada looyar waa kuwa ka qayb galay ama kuwa difaacayay baa hadda hargeysa lagu xukumay hadda hargeysa lagu xukumay ha mas'uul ka saaray soo kula ma markii burco lagu xiray
ilaa maalintaa imika la xukumay ilaa imika uu jeel ku jiro ururka soolja waajibaadkii xaqa ugu lahaa uu ka gutay labada looyar u doodayey marka laga yimaado barkhad maxamuud cabdiraxmaan gareeqaan maxamuud cabdiraxmaan iyo maxamed abukor labaduba waxa laba looyar oo ururka u shaqeeya iyaga u difaacaya oo u doodaya ilaa maanta sidii baan ururka hawshiisa ugu jira halkaas aan kuu saxo labada garyaqaan oo u doodaya idinku aad soo dirteen mid maalin qura ayuu yimid dib dambena looma arag waxaan u malaynaya aadan la soconin dib rekoorka u baar mid baa laakiin joogay oon kuu qiraya xarga cabdimaalig see aragta labada looyar oo kale tamaam mubaaragna ma ilaa 4 looyar ilaa 6 looyar oo u doodayay xarga cabdimaalig xukunka maxkamadda ay ku riday 3 sano barkaas ee aragta ururkaygu waa ka hadlay dabcan ururku waa ka hadlay anuu cabdimaalig xadhigiisa runtii intii aanu difaaci karaynay waa difaacnay garsoorkuna de isagaa xaq u leh inuu go'aan gaadho marka aanu difaacno runtii waxyaabaha cadeymaha la keeno u arka runtii de inuu ku qancay garsoorka isaga garsoorku xaq u leh waanan ka hadalay runtii anagu sidii aan u furdaamin lahayn sharciyan aan ugu doodi lahayn haddii ay abiil noqonayso iyo haddii ay maxkamad sare noqonayso runtii hawsheedaasi waxaanu go'aansanay mar kale kugu soo celinaa inaad u doodeen oo looyar u qabateen shaki kuma jiro adna waa ogtahay anna waa ogahay inkastoo hal looyar oo ahaa mid maalin qura yimid mubaarak iyo rag kale u doodayey sidee u aragtaan urur ahaan xarigiisu ma xaq baa mise xaq maa sidee u aragtaan haddii maxkamad go'aan ka gaadho runtii dee dabcan male choice male laakiin waxaa noo bannaan fursadaha kale ee aanu ugu qaadi karno maxkamadda xukuumaddu halkan joogi lahaa su-aalo kale aan weydiin lahaa su-aashaan ku weydiinaya ururkiina fikirkiisa raba inaan ogaado adigu aa guddoomiyaha u tahay kaaga shaksigaa dan kama lihi ururkiinu cabdimaalig ma wuxuu u arkaa nin dembiile ahaa oo maxkamaddu dembi ay ku heshay mise nin dembi uusan lahayn lagu qaaday soo aragtaa ururka horta isagu saxafiga dembi ma saara dembina kama meedho waxa uu u sameeyaa imkaaniyaadkii qofkaasi lagu difaaci lahaa cidda eedaynaysan anagu ma nihin difaacday waa isla garanay cidda eedaynaysan anagu ma nihin waan fahmi karaa su-aashu inay adag tahay ka dhuudhuumanaysa ama ka leexleexanaysa laakiin kaama daynayo ilaa jawaab saxa aan kaa helo su-aashan ku weydiiyey jawaabteedu waxay ahayd ururkiinu sidoo u arkaa cabdimaalig xukunka lagu riday ma xaq buu u arkaa mise baatil dee dabcan cabdimaalig waa la soo eedeeyey saan kuu sheegay dee dembi baana lagu helay dembi baa lagu helay dembi baa lagu helay soo waxaa aragtaa inuu dembi lagu maadaama garsoorku yidhi dembi baanu ku helay dee anagu garsoorka ma dafiri karayno mana hor istaagi karayno garsoorka waa xaq ugu leenahay sida dacwadaha caadigaaba ka dilay dad baa dee marka xukun lagu rido loo doodaayo abiil loo qaadaa dacwadiisa la galaa soo marka idinku maxkamadda la safantihiin maanagu xukunka abiil baa loo qaadinaabe soo abiilka waxa u qaadaysan kuma qanacsanidin dabcan kuma qanacsanin soo cabdimaalig waxa aragtaa inaan dembi lahayn oo dembi maxkamaddu ay xukuntay anigu cabdimaalig maadaama maxkamaddu xukun ku riday abiilka aanu qaadanayna waxa weeye in aanu fursad u siino in aanu ilaa iyo halka ugu dambaysa taagnaano haddii maxkamadda ilaa saraysanna la gasho waa gaarayna laakiin anagu choice kama lihin mana dee radii karayno go'aanka maxkamadda mar kalean dib kugu soo celinaya si kalena waa kuu odhanaya haddii cabdimaalig la xukumay oo maxkamaddu dembi ay ku soo oogtay aad ogtihiin inuu cabdimaalig dembigaas ay maxkamaddii ay ku soo oogtay oo uu xukunkiina dhacay abiilka maxaa u qaadanaysaan dabcan abiilka sababo fara badan baa loo qaataa midda ugu muhiimsan ishaag waqtigan way hayaan waxa weeye in fursad loo siiyo qofkaasi in xuquuqo uu leeyahay oo markaa darajadii koowaad lagu arki waayey runtii darajada labaad maxaa la arki waayad ogtihiin abiilka qaadanaysaan dabcan dee shuruucda iyo sharcigaanada markaanu la tashanay aanu eegnay in fursado fara badan loo geli karo bay dee nagu qanciyeen oo dee ay maadaama iyagu aanu sharci yaqaana ma nihin anagu waxa u aragnaa in saxafigii dee duruuf kasta uu ku jiro aanu sidii fursad u heli lahaa in waxaa lagu haystaa runtii dee ama ay ka khafiifsanaadaan ama runtii dee ay beri uu ka noqdoba loo sameeyo marka taa inta aan naga soo afjarmayso waa wadayna anagu inuu cadaalad helay ma u malaynaysaa dabcan somalilan dee garsoorkeedu waxyaabaha aan ku faano weeyaan runtii inta badan waxyaabo badan bay garsoorku nala qabteen waxyaabo fara badan bay tasiilaad siiyeen saxafiyiinta xuquuq fara badan ay lahaayeen saxafiyiintu oo awal hore aanay heli jirin cabdimaalig inuu cadaalad helay ma aaminsanta ya cadaalad inuu helay ma aaminsanta maxkamadda dhexdeeda dabcan broseska marka loo eego ha tii ugu wanaagsaneed buu helay fadhigiisa waa laga qayb geli jiray sharci yaqaanadu dee waa u doodayeen wax haba yaraatee ma aaminsantahay waxa lagu haysto su-aashayga ugu dambeysay ma aaminsantahay waxa lagu haysto mubaarak oo garyaqaan mubaarak videogiisa noo soo bixi waaya awgeed baan su-aashan kala soo dhex baxay kreditna isagaan ku siinaya wuxuu ii sheegay videogana ku sheegay
in waxa loo haysta ay tahay xorriyatul qowlka iyo waxa uu qoraya ma aaminsan tahay waxa loo haysta inay xorriyatul qowlkiisa tahay sidaad la socoto haddii aad daawatay haddii aad ka wareysataba waa dhowr kiis baa lagu haystay dacwadiisu way kala duwanaayeen midna waxay ahayd mid ay xukuumadda iyo mas-uuliyiinta xukuumaddu ay ka cabanaysay midna waxay ahayd mid dad shacbi ay ka cabanayeen weliba arday iyo iskuul baa ka cabanayay iskuulku maxkamadda habeeratay wuxuu keenay ma jirto oo wiilay Cabdimaalik waa ka cabanayna muddac ma ahayn iskuulku dacwadaha lagu xukumay Cabdimaalik lagu eedeeyay iskuulku wuxuu yiri anagu arinta shaqo kuma leh hatta ciidu ma soo darsan soo bandhigday hadii yiri iskuulku anu intaan ka ogahay iskuulku muxuu yiri anu intaan ka ogahay eedaha lagu oogay eedda iyo iskuul marka qof la soo eedeeyo qofna waa eedeysan qofna waa eedeynaya hadii eedeysanihii la waayo qofkii wax eedeynaya hadii la waayo eedeysanaha maxaa lagu haysta qofka wax eedeynayay waayo xukuumadda way maanina waa inaan kala qaadan doona iskuulka abaarso qayb kamaysan ahayn Soomahan eedeynta Cabdimaalik ma soo oran wixii lagu soo oogay dawladdu soo oogtay ay sheegaysaa طبعا وكاي taa ana waxaan ku sheegay iskuulka abaarso intuu maxkamadda yimid muu yiri ninkaan waxa soo yiri waxaan filayaa malaha inaad ka warhaynine cid wal oo kamida mas'uuliyiinta iskuulka ama haday noqoto waalidka ama haday noqoto ardayduba si public uga hadleen in eedaasi Cabdimaalik uu ku gafay oo dambi uu ka galay video fara badan baan daawaday iyo qoraallo fara badan baan akhriyay dad ka cabanayo oo anagu iskuulkan waa fiican yahay wiilal iyo gabdho isku ma tagaan waa meel wanaagsan weeye Cabdimaalik wuxuu sheegay waa khalad waxa salan kugu ma haysto iskuulku dacwo ma ku soo oogay Cabdimaalik maxkamadda dhexdeeda طبعا ها qodobada lagu soo oogay kamid ahayd dawladdu tay wadata ma rabo dawladdu iyo waxaan ku eedaha tan dawladda waa aan galno ama taas ku saaran dawladdu waxay ku soo eedaysay Cabdimaalik waxay ku soo eedaysay dawladdu waxay ku soo eedaysay in uu xukuumadda iyo qaranka Soomaaliland runtii eedo ka dhan ah uu galay wuxuu yiri wuxuu yiri waa daawanaysa طبعا wuxuu yiri in madaxweynuhu ku eedeeyay inuu dictator yahay inuu tubihii dawladihii hore burburay aan mareen isagoo wax cadeeyma haba yaraatay hadalkiisa iyo eediisa runtii aan raacin taas bay ahayd waxyaabaha lagu eedeynayay dawladdu u doodaysay hadii la yiraahdo maamulku waa dictator qof uu yiraahdo wariyana uu yahay inuu cadeyn karo waa daruuri qof iska ma eedeyn kartid si aad ugu aragtaa maamulka in eedeymaha dhabta oo jira loo soo jeeso la yiraahdo qofku xorriyatul qowlkiisa cabiri karo dhigi karo qofkaana waa dictator waa kaliya taliye go'aanka kaliya gaara ummadana ku takrifalaya nod madaxweynaha bar mas'uuliyiinta kala xataa in la yiraahdo si aragtaa adu qofku xorriyatul qowlkiisa cabiro طبعا sida aynu la socono ama mihnada saxaafadda tahay qofka saxafiga xaq uma laha isagoon cadeyn u haynin ama cid aan tixraacaynin inuu qof bini aadana iskada madaxweyne iskaga eedeeyay waxaan markaa laakiin xorriyatul qowlka qofku xaq mu leeyahay inuu saado طبعا uma leh so anigu hadda kuma oran karo adigu shaqadaadii waa gabtay waadna guul daraysay kuma oran karo waad oran kartaa laakiin ana cadeyn keenin midna waa inaa cadeyn keentid oo wixii ummadda soo hordhigtid saalim kaba ku lahaa idul qaado midna waa anigu xaq waxaan u leeyahay weeyaan anoon cadeyn keenin maxamuud cabdi jaamac waxa weeye waa nin maaragtay aan wanaagsaneyn oo saas inaan ku dhaho oo xorriyatul qowlkaas anigu xaqaan u leeyahay ma aaminsan tahay mid aan ugu leeyahay inaan ama run ahaado ama been ahaato xaqu mali aad baan kugu mahad celinaya daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa waraysiga aanu la yeelinay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland Soldier loo yaqaan marka la soo gaabiyo walaalkay saaxiibkay mudane maxamuud cabdi jaamac oo asoo halkan caawa noogu yimid waan idinka raaligelinaynaa wixii maaragtay daahitaan oo videoga idin soo deyn kari weynay doodahan oo kalena insha Allah tacaala waan dhiirigelinaynaa asagana uga mahad celinaya imaanshihiisa naga soo xiritaankiisa anagana soo dhaweynaa sharaf iyo karaamo inoo tahay suxufiyiinta gudaha jooga meel kasta joogaan waxaan u rajeynaynaa sharaf iyo wanaag insha Allah tacaala inay maaragtay mixnadooda ku shaqeystaan cidna aysan u aabayeelin laakiin aysan marnaba nabadda iyo horumarka iyo cadaaladda aysan ka leexanin oo kaamiradu aysan noqonin iyo mikrofoonku wax ummadda lagu dhibo ama wax lagu burburiyo uu noqdo kan wax lagu toosiyo gaar ahaan dadka mas'uuliyadda haysta isha inta farta laga geliyo runta loo sheego laakiin cadeyn la garab keeno studio TV Universal waxa qayb weyn ka ah barnaamijkan oo caawa farsameynayay ustaad maxamed biiba oo mahad celinaya satellite dishka waxa noo haya Axmed Daahir Afaara aad baan ugu mahad celinaya dadkiina daawanaya oo mahad celinaya laftooda Cabdiraxmaan iyo saaxiibkiis oo la socday gudoomiyahana waa u mahad celinaya 100% sidoo kale waxaan mahad celinayaa design-ka quruxda badan ee aad ku aragteen social media Cabdifataax Ali Sharwa ayaa noo sameeyay oo wariyo weyn ah oo mahad celinaa meel ka soo joogtaan intaanu kala dib ugu kulmi doono guuliyo gobonimo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi